السلام عليكم صاحبي الدمانتين بهالكني وقراء تيفي قضبضات حلقني داوان دونتان وحا كمدا مدحوين فرماجو يرئيس الوزارة محمد حسين روبلو اسكمان دافسان عدة شرقودومين ايسا كل مدى مقالة مقدشة وقبل لابانا يمدحد الدولة يكوى مامل قبلات يدا عراحو قنو كدلتي وزيردي وكل واقعي مدحوينها مامل كجبلان أحمد مدوبي يقار كمدا ودربدي بيس عزلي dowladda Soomaaliya oo ku guuleysatay inay hoggaanka u qabato ururka hanti dhowrayaasha qaaradda Afrika xukuumadda Turkiga oo ka walacsan qorshe qarsoon oo dowladda Imaaraadka Carabtu ay ka leedahay xiriirka ay si ballaarinayso ee Somaliland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya oo muddo kooban u qabatay 22 jaamacadood oo ka howlgala wadanka qodobadaasi iyo kuwa kale ayaa daawan doontaan haddii rabbiga weyne naga yeelay diyaar garooba saaxiibayaal isku soo laabashaha boon mar kale daawadayaal halkani waa Graa TV xasuusnow haddii aad joogtid waqtiga salaada soo guda waajibka alle ee ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada fiidiyowgan aynu ku horeyna saaxiibayaal sidaan horudhici bay idinkugu sheegay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisa Maxamed Xuseen Rooble ayaa xilligan isku maandhaafsan cidda shirgudoominaysa kulamo la filayo inay dhawaan magaalada Muqdisho uga bilowdaan madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada kuwaasi oo looga arinsanayo khilaafka dabada dheeraaday ee ka jira doorashooyinka xubno ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa u sheegay warbaahinta in labada mas'uul ay xilligan isku khilaafeen arrinkaasi isla markaana ay noqon karto caqabad mar kale hor istaagta qabsoomida shirka looga hadlaya doorashooyinka ee uu dhawaan cilaamiyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la sheegay inuu doonayo isagu in uu furo kulamada ka bilaabanaya magaalada Muqdisho ee u dhaxeeya madaxda dowlad goboleedyada hoostaga dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo xukuumadda ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble kuwaasi oo ujeedadoodu ay tahay in heshiiska madambaysa looga gaaro doorashooyinka dalka ee 2021 laguna dhamaystiro heshiiskii 17 Sebtembar ay hogaamiyaashu ku gaareen magaalada Muqdisho laakiin dhinaca kale ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo dhawaan goob fagaara uu madaxweyne Farmaajo kula wareejiyay hanaanka doorashooyinka iyo amnigooda ayaa taasi u arka mid lumin karta kalsoonida ay xilligan dhinacyada mucaaridku ku qabaan xukuumaddiisa haddii uu kulamadaasi ka soo dhex muuqdo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ayaa kol hore sheegay inaysan ka qayb gali doonin kulamo dambe uu garwadeen ka yahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo laakiinse waxay aqbaleen inay yimaadaan magaalada Muqdisho markii awoodda lagu wareejiyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyaga oo dhowr jeerna ku celiyay in madaxweynuhu uusan shanta wali kala bixin arrimaha doorashada arintani waxaa la sheegay in madaxweyne Farmaajo uusan markii hore u soconin isla markaana uu daacad ka ahaa ku wareejinta hanaanka doorashooyinka ee ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble hase yeeshee waxaa kula taliyay qaar ka mid ah saaxiibada aadka ugu dhow oo laga xusi karo taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Fahad Yaasiin xubnahani waxay u sheegeen madaxweynaha intaasi ay isaga sumcadil ku tahay haddii uu ka soo muuqan waayo kulamada u dhaxeeya dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ee heshiisyada looga gaarayo masiirka wadanka iyo doorashooyinka dalka ee 2021 laakiinse waxay u soo jeediyeen inuu kulamada furo goobjoogna ka ahaado wixii heshiisye iyo wada hadalana ay wada galaan ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxda maamul goboleedyada arrinkani waxaa la sheegay inuu si weyn uga biyadiiday ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble isla markaana uu tilmaamay in isaga loo daayo wax waliba oo ku saabsan doorashooyinka iyo amnigooda isla markaana xukuumaddiisa iyo maamul goboleedyadu ay ishor fariisan doonaan kuwaasi oo heshiis ka gaari doona hanaanka doorashooyinka ee 2021 xubnahani ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaruhu waxay sheegayaan in arrinta khilaafkani ay xilligani gabaabsi gelisay
dadaal xoogan oo dhowrkii toddobaadii aynu soo dhaafnay uu waday ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda qaranka Maxamed Xuseen Rooble isla markaana uu ku doonayay inuu ku kalsooni geliyo dhinacyada mucaaradka ee ka soo horjeeda dawladda madaxweyne Farmaajo si looga dhaadhiciyo in dalka laga qabto doorashooyin daahfuran oo la soo dadajiyo. arrintan waxaa sidoo kale loo badinayaa in madaxweyne Farmaajo uu ka tanaasuli doono maadaama uu goob fagaara ah howlaha doorashooyinka kula wareejiyay Maxamed Xuseen Rooble isla markaana haddii uu diido isagu aysan jirin meel ka dambayso oo loo soo mari karo. dhanka kale siyaasiyiinta midowga murashaxiinta mucaaradka ayaa iyaguna ka dalbaday ra'iisul wasaaraha in laga qayb geliyo kulamada looga hadlayo doorashooyinka ee ka bilaabanaya magaalada Muqdisho hase yeeshee taasina iyaga dhankooda waa laga diiday. mana jirto sabab madaxweyne Farmaajo loogu soo dari karo waxayna ka caraysiin kadhaa dhinacyada mucaaradku ay ku jiraan madaxda Puntland iyo Jubbaland. balse dhinacyada la talinaya madaxweyne Farmaajo ayaa ka dhaadhacsiinaya in arrintani ay tahay mid hoos u dhigi karta maqaamkiisa maadaama uu isagu weli sii joogo kursiga ugu sarreeya dalka isla markaana uusan imaanin madaxweynihii bedeli lahaa. arrintani waxay sidoo kale ku soo beegmaysaa iyadoo madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe oo gorsii horeysay la hadlayay laanta af Soomaaliga ee BBC-da uu sheegay in weli ay muuqato in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu faraha kula jiro arrimaha doorashooyinka taasi oo lumin doonta sida uu hadalka u dhigay kalsoonida lagu qabo awoodda fulineed ee ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. waxa uu sheegay in haddii sidii ra'iisul wasaaraha loogu wareejiyay awoodda doorashooyinka uu qabsado shaqadiisa isla markaana uu isagu arrinta la wareego ay ku kalsoonaan doonaan kulamana la geli doonaan xukuumadda. laakiinse waxa uu meesha ka saaray in goobta uu yimaado amaba uu saameyn ku yeesho madaxweyne Farmaajo. hadalka Axmed Madoobe ayaana muujinayay inuu dareemay nuxnuxda arrinkani la xidhiidha isla markaana uu ka siyaafeefanayay inaysan ka qayb gali doonin kulan uu dhex fadhiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dhowr jeer hore ay isku fahmi waayeen kulamo la doonayay in xal looga gaaro doorashooyinka 2021. waana xilli weli magaalada Muqdisho aysan soo gaarin qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada iyadoo la taagan yahay xilligii ay ahayd in shirkani uu ka bilowdo magaalada Muqdisho oo ah 20ka bishan May. laakiinse waxaa la rajaynayaa in saacadaha soo socda ay ku soo qulquli doonaan magaalada caasimadda. cara xoogan ayaa ka dhalatay golihii wasiirada ee uu ku dhawaaqay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe kadib markii ay si adag uga soo horjeesteen dadka degan gobolka Gado oo hoostaga maamulkaasi sheegeenna in lagu gacan bidxeeyay golaha wasiirada cusub ee Jubbaland. gobolka Gado oo xilligani maamul ahaan aan hoostagin Axmed Madoobe ayaa sida guud uga tirsan maamulka Jubbaland ee fadhigiisu yahay magaalada Kismaayo waxaana xubno aad u yar laga siiyay liiska golaha wasiirada ee uu ku dhawaaqay Axmed Madoobe muddo 2 sano kadib. waxgaradka gobolka Gado ayaana magacaabista golaha wasiirada ee maamulka Jubbaland ku tilmaamay mid ay buux dhaafisay isla markaana si weyn loogu gacan bidxeeyay dadka ku dhaqan gobolka Gado ee koonfurta wadanka Soomaaliya. gobolka Gado waxaa haatan ka dhisan maamul ay u samaysay dawladda federaalka ee Soomaaliya kadib markii ay ka saartay ciidanka daraawiishta ee Jubbaland halkaasina ay geysay ciidamo ka tirsan militariga wadanka. golaha wasiirada ee uu ku dhawaaqay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe oo ka koobnaa 24 wasiir waxaa gobolka Gado ka soo jeeday 3 wasiir oo kaliya. arrintaasi oo noqotay mid si weyn uga caraysiisay dadka gobolkaasi. dhinaca kalena wasiirada ugu sarreeya kuwa la magacaabay sida wasaaradda maaliyadda iyo arrimaha gudaha lama siinin gobolka Gado waxay weli xigaan dhinaca Axmed Madoobe. shacabka gobolka Gado ayaa awal diidma ka muujinayay in caasimadda iyo madaxweynaha Jubbaland ba hal qabiil isku darsaday taasi way ku tilmaamayeen mid aan suurtagal ahayn sadbuursina uu ku jiro.
laakiinse xaaladda ayaa haatan u muuqata mid sii dhabaqday isla markaana ay sii kala fogaanayaan gobolka Gado iyo maamulka Axmed Madoobe ee ka dhisan magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. waana xilli dhanka kale uu ka bilowday gobolka Gado abaabul ay doonayaan inay ku dhistaan maamul gooniya oo ka madax banaan kan Axmed Madoobe ee magaalada Kismaayo. dhanka kalena wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha ee maamulka Jubbaland oo kamid ahaa wasiiradii uu magacaabay Axmed Madoobe ugaas Cali Aadan Sonkor ayaa sheegay inuusan ku qanacsanayn xilka loo magacaabay isla markaana uu iska casilay. qoraal uu soo dhigay bartiisa gaarka ah ayuu ku sheegay inuusan doonaynin xilkani uu u magacaabay Axmed Madoobe. waxaana dhinaca kale uu sheegay inuu hambalyeeyo dhammaan golaha wasiirada cusub ee kale ee Jubbaland. madaxweyne Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe iyo xubnaha kale ee ka tirsan golayaasha waxaan uga mahad celinayaa isku daygoodii iyo garab istaagii ay ii muujiyeen, balse nasiib ayaan isaacidin duruufo jira awgood ma aqbalayo ayuu yiri wasiir ku-xigeen sida uu sheegay. dhanka kale waxa uu tilmaamay in saacadan laga bilaabo uusan ka mid ahayn wasiirada uu magacaabay Axmed Madoobe ee la shaqeynaya maamulkiisa. waxaan guud ahaan Jubbaland u rajaynayaa horumar iyo hor u socod mar walba waxa igu weyn inaan ahay qof halgankii Jubbaland lug weyn ku lahaa ayuu tilmaamay. sidoo kale wasiir ku-xigeenkaasi madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe ayaa muddo 2 sano laga sugayay inuu soo magacaabo golihiisa wasiirada, waxaana tan iyo xilligaasi lugaha haystay caqabado waaweyn oo ka gudbi waayay, taasi oo ay ugu adkayd arrinta gobolka Gado iyo sida xubnaheeda loo kala muuqanayo. Jubbaland waxay wajahaysay xaalado adag iyo duruufo kala gedisan laga soo bilaabo 2019 markii Axmed Madoobe uu sheegtay inuu ku guuleystay doorashooyin ka dhacay magaalada Kismaayo, sidoo kalena xubno kale ay geestooda kaga dhawaaqeen madaxtinimada Jubbaland. doorashadaasi waxaa ganafka ku dhiftay dowladda federaalka ee Soomaaliya uu horkacayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, inkastoo goor dambe la isku daalay ay u aqoonsatay 2 sano oo ku meel gaar ah Axmed Madoobe. intaasi wixii ka dambeeyay dowladda Soomaaliya waxay xoog saartay inay gobolka Gado ka saarto maamulka Jubbaland, iyadoo sidoo kalena samaysay isku dayo kale oo xitaa ay uga wareegayso magaalada Kismaayo. waa hagaag daawadayaal qaybaha dhexe ee shabakada wararka Garaa TV ayaa nagala socotaan. dowladda federaalka ee Soomaaliyana waxay si rasmi ah ula wareegtay hoggaanka ugu sareeya urur caalami oo ay ku midaysan yihiin dhammaanba wadamada qaaradda Afrika. ururka hanti dhowrada guud ee qaaradda Afrika ayaa gudoomiyaha golaha maamulka ee 3 sano ee soo socota uu doortay hanti dhowraha guud ee qaranka Soomaaliya mudane Maxamed Maxamuud Cali Afgooye. ururka ayaa sidoo kale gudoomiye ku-xigeen waxay u doorteen hanti dhowraha guud ee dalka Kenya oo lagu magacaabo Marwo Nancy Jantungu. xilkani oo ah mid wareegto ah ayaa waxaa horay u hayay hanti dhowraha guud ee dalka Sierra Leone Marwo Lara Taylor oo hadda uu kala wareegay hanti dhowraha guud ee qaranka Soomaaliya. ururkani oo magaciisa loo soo gaabiyo Afrisol waxaa ku midaysan hanti dhowrada guud ee dalalka qaaradda Afrika, iyadoo xaruntiisa shaqaduna ay tahay dalka Koonfur Afrika. Soomaaliya ayaa xubin firfircoon ka ururkani, kaasi oo hanti dhowrada guud ka taageera dhanka horumarinta maamulka iyo shaqada ay hay'adda si qaabilsan tahay. xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka Soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe hirgeliyay tallaabooyin dib u habayn iyo horumarin iskugu jira, kuwaasi oo ku mutaystay aqoonsi heer gobol iyo mid caalami ah. Soomaaliya ayaana 2 sano ee u dambeysay waxa ay soo saaraysay warbixino baariseed ku salaysan hanaanka baarista caalamiga ah ee loo maro hantida qaranka. baaritaanada uu sameeyay hanti dhowrka guud ee dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo tala soo jeedinada la socda ayaa muhiim u ah daafurnaanta iyo isla xisaabtanka maamulka maaliyadda ee hanaanka dayn cafinta. tallaabada ay dowladda Soomaaliya kula wareegtay hoggaanka ururkani caalamiga ah ee qaaradda Afrika ayaa lagu tilmaami karaa guul istiraatiijiya iyo hor u socod ka jira dhinaca Soomaaliya. inkastoo xilkani uu yahay mid meerto waa dhammaanba wadamada qaaradda Afrika, haddana
waxaa lagu qiimeeyaa firfircoonida xubinta ka midka ururkaasi ee doonaysa inay hoggaanka sare hanato. waa hagaag daawadayaal, dowladda turkiguna waxay xilligani ka walaacsan tahay saamaynta dowladda isku tagga imaaraadka carabta ee bariga afrika, khaasatan xiriirka cusub ee ay la yeelanayso Somaliland. warbaahinta dalka turkiga ayaana warbixin ka qortay walaaca dowladda turkiga ee la xiriira galaangalka dowladda imaaraadka carabta ee bariga afrika iyo qorshe dadban oo ay ka leedahay Somaliland. warbaahinta tv4.net oo ka mid ah warbaahinada turkiga ee habka online-ka warka ku soo tabiya ayaa warbixin dheer ka qortay galaangalka dowladda isku tagga imaaraadka carabta ee bariga afrika, khaasatan kan kala dhexeeya xilligani Somaliland. warbaahintu waxay ku warantay dagaalka siyaasadeed iyo midka ciidan ee sida dadban uga dhexeeya dowladaha isku tagga imaaraadka carabta iyo turkiga, isagoo tusaale u soo qaatay taageeradii uu turkigu u fidiyey dowladda qaramada midoobay aqoonsan yahay ee dalka Liibiya iyo taageeradii xulafada imaaraadka uu ka midka yahay ay siinayeen generaalkii Khalifa Haftar oo Liibiya ka waday dagaal uu kaga soo horjeedo dowladda la aqoonsan yahay ee fadhigeedu ahaa magaalada Tripoli. waxay tilmaamtay warbaahintani inuu jiro qorshe haatan dowladda turkigu ay si weyn uga walaacayso, kaasi oo la xiriira in dowladda isku tagga imaaraadka carabtu ay doonayso inay isku fadiso bariga afrika, isla markaana ay saldhig ciidan ka hesho xeebaha Somaliland. waxa uu sheegay in dagaalka siyaasadeed ee labada dowladood ee turkiga iyo imaaraadka carabta ka dhaxeeya uusan ku koobnayn oo kaliya taageerada military ay siiyaan dhinacyada iska soo horjeeda ee wadamada qaarkood bariga dhexe ku dagaalamaya, hase yeeshee waxa uu sheegay in halka labada wadanba ay sida weyn isha ugu wada hayaan ay tahay wadanka Soomaaliya. warbaahinta tv4.net waxay sheegtay in imaaraadku ka dagaalamayo in turkiga awoodiisa uu ku fidiyo gobolka geeska afrika, sidaa daraadeedna markii turkigu uu saldhig ciidan ka hirgeliyay magaalada muqdisho ee caasimada Soomaaliya oo imaaraadkuna saldhig ciidan ka samaystay magaalada Berbera, maadaama uu xiriir la leeyahay Somaliland oo muddo 30 sano ah sheeganaysa inay ka go'day Soomaalida inteeda kale. juqraafi ahaan imaaraadku waxa uu sii waday in uu military ahaan iskugu fidiyo dhul fog si uu u sii joogteeyo dib u dhaca turkiga, ayaa lagu sheegay warbixinta laga sii daayay warbaahintaasi. xukuumadda madaxweyne Erdogan ayaa xilligani wada dadaal ay uga hortagayso isballaarinta imaaraadka ee bariga afrika, inkastoo xilligani aysan u fududayn turkiga inuu dhinaca Somaliland ka soo xirxiro. warbixintu waxay intaasi ku dartay in dowladda turkigu ay weli doobada ka ridayso caasimada Soomaaliya ee Muqdisho, isla markaana aysan gaarin Somaliland. waxaana sidoo kale ay tilmaamtay in xukuumadda madaxweyne Biixi ee haysa talada Somaliland ay u aragto turkiga mid aan dhexdhexaad ahayn, isla markaana uu ka shaqaynayo inay dib iskugu soo laabtaan Soomaaliya iyo Somaliland. waa hagaag wararkeena ayaynu ku sii siqaynaaye ogeysiis ka soo baxay guddiga tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta ee dowladda Soomaaliya ayaa loogu yeeray in ka badan 21 ka mid ah jaamacadaha dalka, kuwaasi oo lagu wargeliyay inay sida ugu dhaqsiyaha badan ula soo xiriiraan guddiga si loo dhammaystiro habraaca diiwaangelinta aqoonsiga jaamacadaha dalka. qoraalka guddiga waxaa lagu sheegay in tani ay tahay fursadii ugu dambeysay oo ay jaamacadaha loogu yeeray haystaan, maadaama 4 jeer oo hore loo yeeray oo aysan imaanin miiska guddigaasi sida lagu sheegay warqadda soo baxday. waxaa lagu wargeliyay jaamacadahani oo magacyadooda la xusay inay sida ugu dhaqsiyaha badan ula soo xiriiraan guddiga qaranka ee tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta si loo dhammaystiro habraaca diiwaangelinta aqoonsiga jaamacadahooda, maadaama ay guddiga qaranka ee tacliinta sare la xiriireen muddo 4 jeera kana soo jawaabi waayeen xiriiradii lala sameeyay, iyadoo haatan warqadani loo raaciyay digniin la xiriidha inaysan wadanka ka sii howlgali doonin haddii aysan iska soo xaadirin iridda hore ee guddigaasi. warkani ka soo baxay guddiga qaranka ee tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada ayaa intaasi ku darayay
waxaan u sheegaynaa jaamacadaha magacyadooda liiska ku qoran yihiin inay tahay fursadii ugu dambeysay ee haystaan kuna imaan karaan guddiga hortiisa sida ugu dhaqsiyaha badan waa inay ku soo gaaraan xarunta dhexe ee guddigaasi uu ku leeyahay magaalada Muqdisho kilomitir 5 Soobe. liiska uu soo saaray guddigu waxaa ku xusan magacyada 21 jaamacadood oo ka howlgala Soomaaliya kuwaasi oo lagu wargeliyay in tallaabo sharciya laga qaadi doono haddii aysan soo xaadirin waqtiga kama dambaysta ah ee loo qabtay kaasi oo u dhaxeeya 19 bisha May ilaa 5 bisha dambe ee June. wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka waa naga intaas dib intaynu u kulmi doono nabadgelyo.